بسم الله الرحمن الرحيم كنا وعن داوديال barnaamijkan waxaynu ku eegaynaa wararkii ugu dambeeyay ee arrimaha Soomaalida ee waddankaasi Mareykanka iyo sida shuruucdan cusub ee soo baxaysa iyo go'aamada ka soo baxaya maamulka madaxweyne Donald Trump ay u saameynayaan iyadoo lala socdo dhowrkii toddobaad ee ugu dambeeyay ciidamada sida gaarka ah u hoostaga waaxda amuuraha gudaha ee Mareykanka ee ICE loo yaqaan ay magaalada Minneapolis iyo guud ahaan gobolka Minnesota uga qabqabanayeen dadka Soomaalida iyo dadka kale ee muhaajiriinta ah haddaba arrimahani gobolada kale ma saameeyeen qawaaniintan cusub ee soo baxaysa ee la leeyahay dadka waxaa laga laabanayaa dhanka qaanuunka dadkii hore sharciyada deganaanshaha u haystay saameynta arrintaasi ay ku yeelan karto iyo guud ahaan macluumaadyo dhanka qaanuunka la xiriira iyo socdaalka ayaan barnaamijkan ku eegi doonaa waxaa qadka imika toos ugu jirta waddanka Mareykanka isla markaana arrimaha la falaqayn doonta Jamiilo Gurxan Jamiilo arrimaha socdaalka waddanka Mareykanka iyo guud ahaan siyaasadda waddanka Mareykanka ayay falaqaysaa dhanka qaanuunkana wax badan ayay kala socotaa waddanka Mareykanka oo la xiriira arrimaha socdaalka Jamiilo aad baan kugu mahadcelinayaa waqtigaaga anoo og inaad safar ku jirtay laakiin arrintan waa arrin muhiim ah waayahay arrinta socdaalka marka garoomada la isku fariisan doonaa sida muuqata marka dadkiina waxa dhici karta dhalashada inay qaateen waqti dheer ay joogeen ay shaqaynayeen si ay doonto ha noqotay qofkii muwaadin u noqday laakiin laga yaabo luqadda inay dhibayso ama dadka waayeelka oo kale dadka caynkaas oo kale oo haddii ay noqoto inay safraan oo kale ama cumro aadaan oo kale ama wadamo kale ay aadaan gudaha Mareykanka markay ku soo laabanayaan dhibaatooyinka la kulmi kara iyo waxa ay tahay inay sameeyaan maxaad inoo sheegi kartaa Jamiil airborada way u fariisanayaan dadka midda kale hadda macluumaad waxaa soo baxay qolada airborka ka shaqeyso la yiraahdo TSA inay la wadaagayaan macluumaadka qolada ICE loo yaqaano ama booliiska socdaalka oo ICE loo yaqaano oo ay og yihiin dadka tallaabooyinka qaadayaan meelaha marayaan inta qof oo safraysa markii hore waxaa dadka ku badbaadi jireen dawladdu waxay leedahay ada kala duwan iyo xafiisyo kala duwan wayna kala xirxirnaayeen awal oo waxaad u baahneed warqad in macluumaadka halkan yaala aad hesho kale hadda waxyaabo aad u fara badan ayaa la isku furfuray qofka haddii uu waddanka dhalasho ku leeyahay ama uu citizen yahay waa la jukajukaynaa in la lugooyaa laga yaabaa in si khalad ah loo xiro waa laga yaabaa in si khalada wax loogu sameeyo waa laga yaabaa laakiin kor iyo hoosba sidaas degdega ah sharciga loogama qaadi karo marka dadka waxaan kula talin lahaa afkaaga xiro xitaa haddii turjubaan lagu keeno kale oo turjubaankaana kula hadlaaya lagu dhaho kale in lagu khiyaameeyo oo been lagu sheegaa laga yaabaa oo qofkii ayaga keensadeen uu yahay melihii qof hebel ah muslim ku khiyaamay laakiin waxa Soomaalida waxay tiraahdaa khayr wax kaama dhibay shar u toghay dawladda Mareykanka ama dawladda Donald Trump uu madaxweynaha ka yahay oo sanadkan jirta Soomaalida waa inay feejignaato haddaadan qareenaadan adi qabsanin ama lawyer adi iyo qofa adi keensatay uusan ku hortaagnayn warqadaadan aqoon ha saxiixin haddii lagu dhaho xitaa naftaada ku xiran oo naftaa kaa baxaysa malkamad ilaaha haya ma fahanteen saas ayay dangerous u tahay oo khatar ay u tahay is-ilaali dadka green cardka haysto safraya ayaa haray ayaga jukajukayn fara badan in la xiraa laga yaabaa in la iska daba wareejiyo in xabsiyo lagu tuuro ayaa laga yaabaa laakiin waxyaabo fara badan waa laga daba tegi karaa haddaan saxiix laga haynin haddii saxiix laga hayo laakiin oo yiraahdaan qofkan rightskoodii way saxiixeen oo fasax ayayna siiyeen in laga daba tago qaran kasta oo aad qabsato aad bay u adag tahay marka wantina ku celinayo waxba ha saxiixin way Jamiil waa arrin fiican baa xustay laakiin qof kasta ma leh qareen dabcan qofka marka haddii intee istaajiyaan qolyahan ICE ama gurigiisa ama goobtiisa ganacsiga ama gaari intee istaajiyaan fursad uusan u heli karin qareen inuu helo haddii uusan hadlin soo ma dhici karta inay hore ka jaabeeyaan hore ka wadaan qofka markaas kale maxaa la gudboon waa inay ku jaabeeyaan waa laga yaabaa waxaad oran kartaa haddii lagu istaajiyo kaleeto miyaan xiranahay ama under arrest inuusan aqoon ayaa laga yaabaa warqado badan ayaa la sameeyey oo hay-ada aad u kala duwan oo waddanka gobollo kala duwan ay ku yaalaan ay sameeyeen oo la yiraahdo know your rights ogow xuquuqda waxa aad u leedahay mar walba xaq aniga waxaan aaminsanahay midda xaq ugu muhiimsan uu qofka uu leeyahay ayaa waxay tahay inuu aamuso
inuu afkiisa xirto. Ha isku taagin, waa lagu xiri karaa, waa lagu jukayn karaa, waa lagu sii jiidi karaa, waa lagu soo jiidi karaa, laakiin hadduusan qoolkaa dhicin oo afkaaga aan waxba laga haynin oo si kasta lagula hadlo aadan afkaaga furin, wax kasta waa laga daba lugooyaa ku gaaraysa, jug inay ku gaartaa laga yaabaa, in lagu xiraa laga yaabaa, laakiin waa laga daba tegi karaa. mar walba taas ogow. qareen haddaadan lahayna qareemo badan oo dadka tabaruc uga shaqeeya ayaa jira, meelaha social mediado kale ayaa laga helaa, sida ACLU kuwa la yiraahdaa jira, kuwa muslin oo keer la dhaha ayaa jira, waxaa jira gurubyo aad u tiro badan oo qareeno fara badan oo dadka tabarucaad ugu shaqeeya oo dadka caawinaya ayaa jira. marka kuwaasoo kale ay la xiriiraan, waxa ugu muhiimsan afkaaga xiro. waada mar kale daawadayaal, maxamed maxamuud cadde oo soo akhriyay buuggan ayaa khadka ku jira. maxamed, marka hore qoraaga Ian Bremmer maxaynu ka naqaan taariikhdiisa? Ian Bremmer wuxuu dhashay bishii November 12 1969. waa nin cilmiga siyaasadda sayniskeeda bartay, isla markaasna waa khabiir xagga siyaasadda arrimaha dibadda. waa mid ka mid ah dadka ugu saameynta weyn ee la fagura khataraha siyaasadeed ee caalamka. waana nin aas-aasay isla markaana madaxweyne ka ah kooxda la yiraahdo Eurasia, oo ah maxadka ugu weyn horseedka ka ah qiimeynta dhibaatooyinka siyaasadeed. talo ayay cid walba siiyaan, waxayna la taliyaan dowladaha, shirkadaha waaweyn, dadka maalgashadayaasha ah, sida siyaasi juqrafeedka caalamka uu isu bedelayo una saameynayo suuqyada iyo qorshayaasha istiraatiijiga ah. Bremmer sidoo kale waa macallin wax ka dhiga jaamacadda Columbia ee waddanka Mareykanka, waana qoraa bugaag badan oo caana qoray oo ay ka mid yihiin The End of the Free Market iyo Every Nation for Itself. waxaana lagu sheegaa in uu qoraaladiisa bartilmaameed uga dhigto siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo isbedelada ku imaanaya awoodda caalamka iyo siyaasadaha qarsoon iyo isbedelada dhaqaale. Bremmer ayaa ah nin u qalma in uu ka hadlo, ama nin loo qaateena inuu ka hadlo, inuu daahfuro doorka Mareykanka uu ku leeyahay caalamka. wuxuuna isku darsaday aqoon cilmi ah, khibrad xag la talin ah, iyo isagoo kulamo la yeeshay siyaasiyiinta waaweyn iyo dadka maalgeliya mashaariicda waaweyn. marka la isku soo xoorxooriyo doodiisa, waxa weeye mid uu ku lafagurayo arrimaha caalamka si qoto dheer, gaar ahaana xilli xiriirkii caalamka saameyntiisa ay awood ku yeelatay xagga dhaqaalaha iyo xagga amniga qaranka ee Mareykanka sidoo kale. waa gartay. marka inta hadda uga gudubno qoraaga buugga Ian Bremmer, waxaad inooga warantaa maxaa saldhig u ah horta buuggan Superpower? buuggan waxaa xudun u ah in qoraaga Bremmer uu ku doodayo in dowladda Mareykanka marka laga gudbo in ay saameyn weyn leedahay, haddana saameynteedaas maaha wax isku dubaridan, iyo siyaasad arrimo dibadeed oo la qorsheeyey muddada dheer iyo istiraatiijiyad. Bremmer ayaa ku doodaya ilaa iyo laga soo bilaabo markii uu dhammaaday dagaalka qaboobaa, dowladda Mareykanka ayaa qalalaase iyo qas isdaba jooga lagu hagashatay, laga soo bilaabo Afghanistan, lagu keeno Ciraaq iyo Libiya iyo Ukraine. waxaa muuqata in jiho cad oo qorsheysan in dowladda Mareykanka ay ku socon iyo ujeedo. istiraatiijiya la'aanta ayaa siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka ka dhigtay mid isdabayaac ah ama iska daba wareeg ah, isla markaasna aan wax soo saar lahayn. wuxuuna ku doodayaa in dowladda Mareykanku ay inta badan xulato mowqifyo siyaasadeed oo ku salaysan kala qaybsanaan halkii la rabay inay istiraatiijiyad cad la timaado. Bremmer ayaa waxa uu sheegayaa Mareykanka waxaa waajib ah in go'aanka uu qaadanayo uu noqdo mid olakac ah, oo ah mid dowlad weyn ay qaadato oo ku doonayo
waxa uu rabo halkii uu siyaasad falcelin ah markasta ku dhaqmi lahaa. buuggaana wuxuu u qaabaysan yahay 3 khiyaar oo istiraatiijiyadeed oo uu qoraagan soo jeedinayo oo mid walba leh mabaadi'deeda, qiimaheeda iyo saameynteeda mustaqbalka sida uu noqon karo caalamka sida loo maamulayo. waa gartay marka isla qodobkaasi waa maxay 3 ikhtiyaar istiraatiiji ahaan ee qoraaga Breimer soo bandhigay? Breimer ayaa u qaabeynaya doodiisa siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka 3 khiyaar oo isbarbar yaala. marka hore Mareykanku waa inuu la yimaadaa madax bannaani. khiyaarkani waxaa laga rabaa dowladda Mareykanka inay yareyso howlaha faraha badan ee caalamka ka wado, bartilmaameed ka dhigato waddankeeda gudihiisa, mudnaantana ay siiso sidii waddankeeda gudihiisa ay u dhisi lahayd uuna noqon lahaa mid dhinac walba isaga filan. Breimer ayaa khiyaarkan ku sheegaya inuu yahay mid istiraatiijiyad Mareykanku isku xakameynayo, halka dowladda Mareykanku laga rabo inay caalamka horseed u noqoto, in ay tusaale lagu dayda noqoto, halkii ay faragelin meel walba la tegi lahayd, isla markaana ay ogolaato dalalka kale inay arrimahooda amniga si madax bannaan wax uga qabtaan. midda labaad waxa uu leeyahay waa mid uu erey ka soo xigtay cayaaraha oo ah in sidii aad ku geyloosan lahayd aad ka shaqayso. ereygan uu ka soo xigtay cayaaraha ayaa ah istiraatiijiyad tilmaamaysa in dowladda Mareykanku ay qaadato siyaasad ah inay caalamka oo la tacaamusho ayadoo eeganaysa danaheeda. dowladda Mareykanka waa inay bartilmaameed ka dhigataa maxay tahay danta qaran ee Mareykanku uu ku leeyahay arrimaha uu sameynayo, ma la miisaami karaa faa'iidada ka imaanayso faragelintaasi ama hawshaas uu dibadda ka rabo, ma difaaci karaa amniga Mareykanka iyo Mareykanka inuu barwaaqo ahaado. waxaanoo dhan waxa uu kaga baaqsanayaa ballanqaadyo ma dhammaata oo aan waxba u soo kordhinayn danta Mareykankan aan ka shaqaynayn. dowladda Mareykanku waa in ay siyaasad dhexdhexaada qaadataa oo u dhaxaysa go'doomin iyo faragelin oo ah inay qunyar socos noqoto, iyo dowladda Mareykanka inaynan ahayn awood weligeed waaraysa oo khiyaaradkan waxaa majaraha u hagaya in dowladda Mareykanka ay waajib tahay inay noqoto mid arrimaha caalamka lug ku leh, ilaalisana qayimka isla markaas iyo xasiloonida caalamka, nidaamka maamulka dimuqraadiyadda, xuquuqda aadanaha iyo dhaqaalaha furan. wuxuuna ku doodayaa caalamka hadda waa isku xiran yahay, waa tuulo. in aad keligaa go'doon noqotid waxa ay dhib ku keenaysaa amniga Mareykanka iyo qaninimada Mareykanka. waddadanna waxay noqonaysaa mid kharash badan oo ka baxo, hawl badanna u baahan. qoraaga aragtidiisa waxa uu rabaa in ay noqoto dowladda Mareykanka mid qawaaniinta caalamiga ilaalisa ee la meelmariyay wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad ee adduunka. khiyaaraadkan oo buugga ku xusay ayaa sidoo kale caqabada lagu arkayaa cadcad oo dadka siyaasadda ka shaqeeya waxaa la rabaa inay si olokaca u doortaan khiyaar waxtar u leh Mareykanka halkii laga socon lahaa waxa hadda socda. waa gartay marka waa maxay tusaalaha uu adeegsanayo si uu u taageero doodihiisa? Breimer lafaguridiisan ayaa waxay isu keenaysaa inuu arrimo taariikhi ah oo hore u dhacay oo lasoo daraaseeyey xusayo, iyo lafagurid siyaasadeed iyo meelaha ay ka nugul yihiin, iyo aqoonta la xiriirta juqraafi siyaasadeedka. wuxuuna dul joogsanayaa dhammaan tallaabooyinkii uu Mareykanku qaaday wixii ka dambeeyay dagaalka labaad ee adduunka ilaa iyo laga soo gaaray horaantii qarnigan 21aad aan ku jirno. wuxuuna tilmaamayaa siyaasaduhu waa inuu noqdaan kuwo jiha leh, laakiin siyaasadihii uu daraaseeyey waxay noqdeen kuwo aan jiha lahayn oo Mareykanka go'aamadu qaadanayo dhan ay ahayn falcelin
iyo istiraatiijiyad aan isku dubaridnayn, wuxuuna miisaamayaa faa'iidada dhaqaale iyo midda siyaasadeed Maraykanka ka soo gelaysa howlgallada uu wado, wuxuuna hoosta ka xariiqayaa in khiyaarada uu soo jeediyey istiraatiijiyadeed ay yihiin kuwa danta Maraykanka lagu gaari karo. waa ka duwan tahay uu leeyahay doodaha aqoonta keliya laga hadlayo, khibrad ayaa loo baahan yahay. qaabka uu premier hadalka u soo jeedinayo waxa weeye in la isku daro khibradda iyo in la isticmaalo luqad soo jiidanaysa dadka mutaqasiska ku ah arrimahan siyaasadda, isla markaasna dadka akhristayaasha guudna xiise gelin karta qoraaladan uu sameynayo. khiyaaraadkiisana waa cadcad yihiin, wuxuuna miisaamayaa saameynta ka dhalan karta, wuxuuna akhristayaasha ku casumayaa in ay u fekeraan si qumaati ah markay timaado Maraykanku waxa ay tahay inuu mudnaanta siiyo, halkii uu Maraykanku siyaasadii hore iyo go'aamadii hore oo la qaatay ku noqnoqon lahaa ee khasaaraha badan keenay. waa gartay. marka maxay yihiin waxyaabaha buugga uu ku wanaagsan yahay ama muhiimaddu u leeyahay? buuggan ayaa waxa uu yahay mid kala caddaynaya qorshayaasha saddexda ee uu soo bandhigay qoraagan. saddexdiisa khiyaar ayaa waxa uu ku fududeynayaa mowduuc aad iyo aad u dhib badan, cid walbana hadda ay fahmi karto. premier ayaa aragtiyaha kala duwan ee siyaasadda arrimaha dibadda ee Maraykanka iyo falsafada la xiriira ka dhigaya mid la fahmi karo, wuxuuna qasbayaa akhristaana ku qasbayaa in uu arko siday wax u jiraan, wuxuuna isku dayayaa inuu ka baaqsado in uu hal jawaab bixiyo. waxa uu rabaa in la fahmo khiyaaraadka. waxaad moodaa buuggan in la daabacay sanadkii 2015. su-aalaha uu soo jeedinayo Bremer ee la xiriirta hoggaanka Maraykanka ee adduun hadda majaraha u hayaan wadamo badan in Maraykanka sidii hore u dhaqmi kareenin, haddii uu rabo Maraykanka caqabadaha waaweyn ee caalamka la soo gudboonaaday inuu la tacaamulo. tan kalena waxa weeye buuggan siduu u dhigay ayaa si isu dheelitiran. Bremer waxa uu ka baaqsaday siyaasad iyo mowqif dadka kala qaybinaya. taa beddelkeedii wuxuu akhristayaasha ka dalbanaya inay qiimeeyaan saddexdan istiraatiijiyadood dhammaantood, qaadataanna mid ka istaahila oo dowladda Maraykanka ku hagi kara muraadka ay leedahay, soona koobaya macluumaad waxtar u leh marka la fiiriyo khiyaarka ay tahay dowladda Maraykanka inay qaadato. waa gartay. marka yaa ku habboon inuu akhriyo buuggan, maxaase sabab ah? dadka dhaleecaynaya qoraalkan uu qoray Bremer marka ay timaado buuggiisan Superpower ayaa ku doodaya halka Bremer uu sahlayo adduunyo siyaasaddiisa arrimaha dibadda iyo khayraadka ka jira ay yihiin kuwo qasan. marka la fiiriyo istiraatiijiyada qaranka Maraykanka inta badan waxa iska caabisaa in wax wanaagsan isku dubaradan lasoo bandhigo. dadka saamileyda ah oo ka mid yihiin Congress-ka iyo xulufada Maraykanka uu leeyahay iyo dadka ka soo horjeeda ayaa inta badan natiijada ka dhiga mid aan la saadaalin karayn. intaa waxaa dheer buuggan Superpower wuxuu bartilmaameed ka dhiganayaa dowladda Maraykanka danaheeda marka la barbar dhigo waxyaabaha kale. wax dareena ma siinayo wadamada kale awoodda leh ee dowladda Maraykanka tartan kula jira ama ka falcelinaya istiraatiijiyada Maraykanka uu ku dhaqmayo. buuggan dadka dhaleecaynaya ayaa waxay ku sheegayaan inuu yahay buug isku darsaday waxyaabo badan, isla markaasna yaraysanaya qaab dhismeedka siyaasadda caalamka iyo dhaqaalaha adduunka inuu isku tiirsan yahay. ay jiraan wadamo tartan xoog leh Maraykanka kula jira sida Shiinaha oo kale, oo wax uu ka sheegay lama arko. halka uu ku rajo weyn yahay in buuggani uu noqdo mid lagu bilaabi karo dooda
laakiin akhristayaasha inta badan waxay rabi lahaayeen in ay si qoto dheer u daalacdaan halka ay ku hagayso aragtiyada uu ninkan soo jeedinayo oo ay ahayd inuu ku daro wadamada tartanka Mareykanka kula jira sida ay u taamulayaan inay ka muuqato laakiin ma suuroobin ayay leeyihiin. waa gartay in ugu dambeyntii waa maxay saameynta joogtada ah ee buuggan super power ku yeeshay fikirka juqraafi siyaasadeedka caalamka maanta? Super Power waa buug aad munaasab ugu ah ardada barata xiriirka caalamiga ah, suxufiyiinta ka hadlaya siyaasadda arrimaha dibadda ee caalamka, siyaasiyiinta iyo dadka kale ee raba ama xiiseynaya inay wax ka ogaadaan hoggaanka caalamka qaabka uu u socday iyo su'aalaha ka jira. buuggani waxa uu qaabaysan yahay nidaam suuragal u ah dadkaan xataa khabiirada ku ahayn macluumaadka siyaasi juqrafeedka caalamka siinaya inay dooda ka qayb qaataan oo ay fahmaan doorka Mareykanka uu ku leeyahay caalamka iyo saameynta ka dhalanaysa. iyo buuggani ayaa waxtar weyn u leh inuu noqdo bilowga doodaha ay isweydiin karaan dadka akhristayaasha ah si ay dooda uga qayb qaataan ayagana ay u difaacdaan aragtiyada istiraatiijiyada Mareykanka qabaan. waa hagaag aad baa u mahadsantahay.